saddexdan xisbi waxaa laga rabaa bishan ku jira 8 inay keenaan sharciyadoodii oo dhan dhismahoodii guddigii fulinta golihii dhexe xeerkii ku kala baxaan hadday wax dhacaan isu bedelayaan political programka dalku qaxsanayaan intaasay guddiga dowladda laga rabtaa xisbigii keeni waaya halkaasuu ku haraya sidii xisbigii udub dalkeena maanta waxaa ka jirta wasaaradkii doorashooyinku soo galay buuq iyo bulaan iyo qayl badan baa ka jirta horta shacabka waxaan u sheegayaa mar walba u sheegaa dadka siyaasadda ku jira ereygaa waa la shaabadeen wax balaayaa loo qaatee waa dad taladii dalka guud uun haya qof walba iyo qoys walba taa ka soo toosteen waxaan ogahay qoys walba dhexdiisa saaka inuu intaas canaanayay qofba qof aanay hawshaa qabo waa arrin qoys inay to gobolkuna intaa in leeg iyo ka badan tahay ta qoyska ama beeshuna suldaanka caaqilka dhibtaasta waa ogtihiin intaa waa la siiraabaya hawl baa jirta waa la murmaya bal ka warrama qaranka oo dhan dacal ilaa dacal oo la doonayo talada in la midayo marka haddii ay xisbi yihiin hadduu baarlamaan yahay hadday qolada miidiya tahay waxaa soo bulaan waa talo dalka hala wanaajiyo ayuun baa lagu murmaya qofba si way ugu muuqata waxaa la yidhahdaa allana la kala beriyo og ereygana la kala og way jiraan dad aftahama ah oo hadalka oranug oo iyagoo doonaya kaadiyeysa ku marin kara sida rag badan oo halka fadhiya qoraal ka soo jeeda gaboose iyo axmed sumcaali sawatar iyo qolasayda iska xampulo oo yara agnaaruhu markii haddaan cara ku hadlo magayaha oolaan iyo ragka halka ka soo jeedaba raggaasina waa jiraa iyo dumarkaasiba marka waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay ka qalloocato marka ay ka hadlayaan fagaaraha oo ereyo qalqallafso soo tuura oo dadka cadho gelisa taasi waxay ku xiran tahay maaha niyadda iyo in la col la yahay qofba si fagaaraha uga hadlo dee ilahay dadka u kala abuuray maxaa maanta buuqa jiraa waxa weeye xisbiyada mucaaridka ah oo aad iyo aad kama cabanayaan qof kale xataa xisbiga kubiye aada ama wasaaraya aniga dadka iyo asxaabtayda iyo ehel iyo qarab midna kama cabanayaan qof kale kama cabanayaan qof waliba waa saaxiibkooda waa walaalkood ninka laga cabanayaa waa madaxweynaha iyo muuse bixi waa kala jaad nina muuse bixi aabbihii iyo abkii ma toos uma madax ashaakala laakiin madaxweynaha waxa ku dhacayo aabbahay loolama jeedo adeerkay loolama jeedo carruurtayda loolama jeedo nin madaxweyne ladaa dadka ka dhaxeeya ayaa la maagaya oo la haaraamaya oo marka doon la ammaanaya markaa labadaas haydii kala saaraan horta marka hore kaasi waa qodobka maanta ay aad uga damqanayaan erey kastaba hala idhaahdee waxa weeye ururada yaa la furin haddii la furana yaanay tartanka madaxweynaha ka qayb gelin waxaan doonayaa keliya inaan idhaahdo haddii aanu cid siyaasadda iskaga soo horjeedno haddii cidun aan ka baqan lahaa oo laha kuwaas yaanay tartankan kula soo gelin horta gabashada ismaaciil sawatir baan iska fogeyn lahaa labadaa oo ma soo dhaweysteen khatar cadiim dadka qaar baa u haysta inaan cid ku soo dhaweynaya arrintaa ma aha labadaasaa haddaan ciddiida tartanka soo galaan deedmo iska qaban lahayd waa artay markay mikrofoonka qabsadaan hadduu iska fogeyn lahayd laakiin sharciga igu qasbaya inaan aqbalo markaa ragga kale waxaa leeyahay 10 sano way taagan yihiin xisbiyaduna waa weelka siyaasadda ee qaranku uu ku taagan yahay aqalkani haddaanu tiirar lahayn ma dhismaayo madaxweyne ma soo baxaya haddaynaan xisbiya soo saarin haddaynaan xisbiya adag oo aynaan xisbiyada korin oo aanay xisbiyadu wax badan baranna dowladda iyo dadka ay soo saaraanna ma fiicnaanayaan markaa horta la fahma xisbiyadu waa halkaynu taladii kusoo ururinay markaa dalka waa inay xisbiyadu 10 marba mar soo baxaan aminta 10 sano maxaa loo leeyahay 10 sano waxaa loo leeyahay haddaynaan awooddeeda karayn in sida dalalka xoogga leh ee la qaala haysta nin walba carab aynaan ururin karin duufo badan awgood oo way aragnimo hore naga soo martay oo xisbiyadu markaaba u baydhaan si qabanaya waxaynu u baahannahay inaan 10 sanaba mar dhig cusub gelino
tobankii sano ee hore ka bilaabmaya markii Soomaaliya joogay 12kii tijaabo wanaagsan bay anu kule bariga raggii ka baqay baan lahayd war baxaa bahalka soo bixi doona aad uga baqay wala soo daayay xisbiya cusub soo baxay xisbigii ugu adkaa Soomaaliland ee Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal aasaasay ayaa halkaa ka baxay waxa soo galay xisbiga wadani waa talaabo hore waa isbedel ma inaan ooyo iyo waxa Xaaji Ibrahim Cigaal waan soo dhaweyna wadanina maantana xisbiga kumiya anigu miiskaana allaayo inuu xisbigayga soo bixiyeen kale bisilkaan u hayaa wala rafanaya aniga kuna cusub isku baan xisbiga mucaaradkiina sharciga maanta waxaanu haystaa cadaan joogno xisbiga ku meel gaara bisha 28keeda waxaana laga rabaa qolada ururada imika waxaa laga rabaa inay keenaan intaasoo qof lacagta bixiyaan talaaba qaadaan saddexdan xisbi waxaa laga rabaa bishan ku jira 28keeda inay keenaan sharciyadoodii oo dhan dhismahoodii guddigii fulinta golahii dhexe xeerkii ku kala baxaan hadday wax dhacaan soo bedelayaan baladkan programka dalku qaxsanayaan intaasay guddiga dowladda laga rabtaa xisbigii keeni waaya halkaas ku haraya sidii xisbigii udub waana sharci erayga leeyahay hala isku sidko waxaan leeyahay hala micnayo hala isku sidko maxaa loo jeedaa ninka isku sida gadoonaya ha micnayo waxa taagan marka hore oo garoonka imika ku jira oo lagu hayaa tartanka oo adigu leeyahay meesha ka baxo la riixaya dee wasa xisbiga jiri waa kulmiyo wadaniyo cidaan leeyahay waa la haystaa iska ay celiya dee garoonka kala ciyaarta cid kale soo gaari kar mayso madaxweynaha leeyahay xisbiga la saaro ma 15 urur iyo 3 masteejan waxaynu doorayna qoladii baarlamaanka waxa ka arkaa laabsaara waana inuu gobolka xeerka dejiya ma waxaan oran doonaa masteejan oo yaa bal noo fasira sasaarka tisarku wuxuu 3 xisbi soo baxaya garoonka imika waxa ku jira oo sharciyana inay 3 xisbi ee hore iyo 15 inta soo dhaafto talaabada labaad inay tartamaan saddexdii ay u qorna ay soo baxaan oo caafimaad qaba in la yiraahdo madaxweynuhu aad muxuu u oranayaa markay urur soo baxaan anu sharcigan ku hadlo afayga maaha ana musabixiya ma hadal anu madaxweynaha hadlo oo sharci fulinaya sharcigana minna uga yaxan maayo anna isoo yaxan maayo oo akhirada jeeri maayo ifkana la oranayo waa lagu qabto sharcigu jeeray nin kalena ugu yaxan maayo taas waa qodob waxa kale oo leeyahay haddaan nahay xisbiyada saddex xisbi horeeyay jiray waanu duceynayaan si duceynayna marka hore nimanka yar ee cusub wanaag soo baxeen ilaahay yaani deena jeerin oo balan ka dabaalada haddaan la yaado rag lama yaraysto miyaa waalintii muxuu dhiciyaa shidaad aka iga qabo rag ku soo hayto ku soo toosna ku soo nasaga ayaga lagu soo socda horta ilaahay waxaan ku rajaynaynaa dambaabreeyay inaan jeedaan ka badbaado oo ka soo baxno taas waa naga duco waxaan ku darayaa ilaahay waxaan ka rajaynayaa xisbiga hore kuwan dambe wali dambaabreeyay maan araga inaanu noqon aanan ololaha dadka markaanu galayno aanan siri balaayo u tumin ilaahay waxaan ka rajaynayaa xisbiyadii hore ilaahay inuu gaarsiiyo dadka markaanu abaabulayno inaanaan oran balaayo iyo xabad iyo rasuulada aan waana walaal codkana siiya oo nabad ku codeeya oo dalka horumariya inuu ilaahay taala waafajiyo noqdaan ilaahay waxa nagu daacaysan aaminoo taada qolada xisbiga inaanaan soo hawsha oo aanaan baqanina aan loo bartano si caafimaad qabo u kala badinana ilaahayna taayna waafajiyo qolada nagu duceeya asal xisbiga ducada ka bacdi qolada cusub waxaan leeyahay warnootuna oo dad uu ku soo cararay waa baldiquna waan ogolahay tartanka nootra inta waxa dheer maanta taa joogta xisbiga ugu dardaaraya mid kale leedahay qarankeenu baryahan oo dhan waxaynu ku xiiqsanay oo lagu haystay dalka ha la wada yeesho taladiisa ha la wada yeesho dalka ha loo sinaado
saacol iyo sanaag bari iyo udal iyo sanadba way ka midaysan yihiin intaa waa dhab cad qayriya soo qarin mayne haddii soo bariga galbeedkii hawshaasi way inoo joogaysaa mar walba laba waajib baynu ku leenahay si dalka loo qaybsado siyaasadda hogaaminta xisbiga lagu yeesho qolada furta lagu gorayo beesha dhaxal la yidhaahdo waxaa ku waajiba inay ogolaadaan oo weliba soo dhoweeyaan inay soo baxaan xisbiyo bari iyo galbeeda ilan dalka waa la wada leeyahay ma waxaa laga gagabanayaa in la arkay markii u horreysay xisbiyo bari iyo galbeed inay soo baxayaan oo soo tartamayaan inaynu soo dhoweyno ogaana la arka oo wax la qaybsado dalka waynu wadaleenahay miyaanay ahayn maxay u ekaanaysaa haddii la yidhaha maanta xisbiyadu mari maayaan u ekaan mayso wax la diiday labada bari iyo galbeed unbaa loo jeeda in la diidayo taana aqbali mayno dastuurkuna ma ogola anna aqbali maayo qaarnimadooda kuma jirto dhammaanteen taasaynu taageeranaa inay xisbiya bari ama galbeed soo baxaan oo dalka la wada yeesho oo saami qaybsa maan la soo qaaday waxaan kusoo gabagabeeyaa mar labaad